weligay waxaan jeclaa inaan umuliyo noqdo, laakiin markii riyadaasi rumoobi weysay, waxaan ogaaday isbitaal keligiisa inaan wax lagu dhalin karin. waa goortaas markaan arkay adeerkiin halan wuxuu ka dhalis badan yahay tirada ilmo ee lagu dhalo xaafadda Xamar Jadiid 6 bil gudaheeda. waa goosha carafteeda inuu jecel yahay, ma arkin uu soo degaayo. waa tadee furtaa ku dhalay, yes weligay ma dhaqay furtaa. waa nin iga yaabiyey. carabna waxay dhahdaa sababta haddaad ogaato yaabka wuu buraa. waana taas wax aan sameeyey. baaris ayaan u galay. waxyaabahan soo ogaadayna haddaan idiin sheego oo aadna ku dhaqantaan, waxay niiga dhigi doonaan makiinado gooldhalis caalami ah. midda koowaad, halan wuxuu ka soo jeedaa cid Vikings la dhaho, waxayna degaan Norway. hadda ka horna waxay argagax geliyeen Yurube oo dhan. ebel ayaga meel gooni ayay ku noolaan jireen. waxay cuni jireen waxa ay ka dhacaano ciidaha ay u duulaano, badiyaa iyaga dhexdooda lee ahayd. laakiin arrinta waxay isbedeshay markay barteen doomaha sida loo sameeyo. waxaana jirtay doon ay caan ku ahaayeen. waxay ahayd doon dheer oo qaliir ah. markaad korka soo arkaysid tiir biyaha iska daadayaad u malayne. Yurub sidaad u wada ogtihiin magaalooyinkeeda waaweyn waxaa dhex mara bado iyo webiyo. doontaana meel kastay ku socon kartaa. adduunkana waxaa ugu xun inaa ogaan weyso cadowgaada meesha uu kaaga imaanayo. adiga dhufaysa iskaaga jirtaa, asigana gurigaadii iyo hantidaadii ayuu ku maqan yahay. magaalooyinka ay baabi'iyeen waxaa ka mid ah Paris, iyadoo la filaynin inay soo galeen, qaar dhaceen, qaar dileen. markii dambe waa la tuugtuugay, lacagaana la siiyey. halan ciidahaasoo ka soo jeedaa. wax ma ka fahanteen sheekadaas? bravo, waa dad caqli badan, dad xoog badan. haddaad dhahday waad jirantahay saaxib. haddii xoog wax laga dhalinayo, Lukaku waa wax ku dhalin lahaa oo good noqon lahaa saacadan. halan waa nin caqli badan, waxaana idinka dabageynaa 3 nooc oo uu goolasha u dhaliyo. midda koowaad, waa inaa qof iska tiirin kartaa. waa ogahay halan inuu geelka dheer yahay, loona malay inuu qoomucaadka heray, laakiin cabirka waxaa ka muhiimsan farsamada. waa inaad taqaanaa jirkaada sida loo adeegsado. wayna fududahay taas. kaliya jirkaada u dhaxaysii banooniga iyo qofka ku soo raacanayo. markaad weeraryahan tahay oo aad boos fiican haysatid, og tahayna banooniga inuu kuu soo socdo ama lagu baasi rabo, waa inaa booskaas nafta ag dhigtaa oo aadan ka bixin. ninkii ku riixin, booska kaasi keenin. tartiibkaada banooni ilaa ka darbeynaysa, ninka iska cel, iskaaga dhac. booskaada adaa leh, qofkaa xoogi kara malaha. hadduu xoog zaa'id keeno rigooro waa. midda labaad, birta koowaad la saaxib. urujeedkayga wuxuu yahay markaad cross filayso, waa inaa noqotaa qofka ugu horeeya ee birta koowaad taagan. weli haddii aadan fahmin waxa birta koowaad aan ka wado, waa birta ugu horeysa oo uu banooniga soo marayo. gooshana waxay leedahay 2 bir, dhinaca crosska imaanayo. mar walba midda kuu soo marayo ku eg. haddaa usoo hormarto meeshaas 80% gool waayo. mar labaadna xasuusnow, cabirka muhiim u ah. dheeraaw ama gaabnaaw, booskaas haddaa usoo hormarto oo banooniga hor taabato, gool waa badanaa. midda saddexaad, halan wuxuu raacaa qorshaha Maxamed Cali Kalaay oo ahaa u sabey sida balanbaalista, u dur sida shinida, oo uu kala jeedo waa inaad diyaar ahaataa oo feejignaataa, faraha ku taagnaataa, laguna ogaanin goorta aad durayso ama halan cidiiso camal. adoo sii dhalinaya leh lagu arko. noqo qof aan la dareemi karin waxa uu sameyn rabo. weli ma isweydiisay difaacyada waxa ay halan u celina yihiin? jawaabtu way fududahay. ayaantan lama arkin nooba saandisho otaha ugu dhex dhuumaaleysanayo. difaacyada waxay la qabsadeen kuwaan soo degayo banooniga soo raadsanayo.
intay sugi lahaayeen. waxaa lagu magacaabaa Nowe Falso. ciyaartooyda booskaas caanka ku ahna waa Messi, Benzema, Firmino iyo Gabriel Jesus. waa sida adigoo baylodnimo bartay oo doontaan wad lagu dhahay camal. saas arinta uma shaqeyso. haddana yaa tababaro ah mataqaanin Pep Guardiola. lamana iskuma khilaafayso ninkaas inuu ka mid yahay macallimiintii ugu fiicneed ee soo mara kubadda cagta. ninkan waa kii Messi oo garab iska dheelayo noogu ciyaarsiiyey, waana sanadkii 91 gool uu dhalinay. ma idinla tahay marka horumarkaas camal Haaland inuu gaarsiin karin? waa waalantiin saaxiibayaal. xitaa waxay ila tahay haddii ay City ku guuleysato Champions League iyo Premier League, Haaland inuu Ballon d'Or-ka qalqal gelin karo. intaa soo doodin taariikhda dib u fiiri. 2010 Messi koob adduun muu qaaday. waxaa kaloo Erling Haaland aad u saaciday kuwa la dheelo oo ugu horeeyo KDB, Kevin De Bruyne. sanadadii ugu horeysay caawintaan mar walba sameyn jirnay kan macaamiil fiican ma haysan oo turjumaya, laakiin waxyaabo fursado abuuray gool uu dhigaa. ninkaana u imaaday macaamiil daacad ah yaa mar walba badeeca loo geeyo, alaab kale ka sii sameynaa, faa'iido ka sii sameynaa, sii dhalinaa dadka ugu fiican oo ku jira. midka uu soo dhawaa asina caawin jiray waxaa ka mid ah Cancelo oo diray Zinchenko oo soo xiga hadda kasto Grealish iyo kuwan kale aad weel soo qabsanayaan, laakiin ninkan iyo Cancelo aad u caawin jireen. hadda kooxda dhinaca bas la wada qabsanayso ninkan roob camal Kroos wax walba loo keeno. ka warama laakiin Ronaldo ku imaaro ka warama Ronaldo to meesha imaala markuu Manchester tagay, Manchester caawin la'aan leh ninkaas lagu goosay. marka waa fikradeena taas. hadda muuqaalkan wax ka faa'iiday anaga hagrin subscribe-ka iyo like-ta, saaxiib asxaabtaada la wadaag. kanaalkan sports kaliis ma wax walba la iska soo dhigi karaa. horta arooskeeda xataa in la soo dhigo waa laga yaabaa. marka anaga hagrin saaxiib.